بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله تعالى halka waxaanu ka sharxi doonaa axkaam nuun saakinati wa tanwiin oo aynu kasoo qaadanay kitaabka la yidhaahdo tuxfat alatfaal oo uu qoray sheekh aljamzuuri insha allahu tacaala. haddaan yar sharxoon kaaga sheekeeyo nuun reeban waa kaas, waa nuunka uu seeba yahay, uu saaran yahay reebitaanku ama sukuuntu. tanwiintuna waxa weeyaan laba kordhow iyo laba hoos dhow iyo laba godaal. marka nuun reeban wuxuu galaa ficilka sida kaaf iyo nuun kun. waxaanu galaa xuruufta sida man. waxaanu galaa shay kasta sida xarafka oo kale iyo ficilka oo kale iyo isamka oo kale. minhum. laakiin tanwiintu waxay gashaa magacyada quraata bas. iminka haddaan ku idhahdo samaaun beytun tanwiintii waxa gashay uun isamkii beytun. hase yeeshee tanwiintu ma gasho ficilka, xarafkana ma gasho. markaa saasay ku kala duwan yihiin insha allahu tacaala. nuun reeban waa nuunka aanay xarakadu saarnayn, laakiin nuunka marka la yidhahdo nuun waxay naga baxayaa nuunkii uu saarnaa fadxuhu, waxaana inaga baxaya nuunkii uu saarnaa hoos dhowgu, waxaa kaloo inaga baxaya nuunkii uu saarnaa damuhu. marka fadxa iyo kasra iyo dama kama sheekeynano nuunka saaran. nuunkani ka sheekeynana waa nuunka uun saaran ku reebitaanka amaba sukuunta insha allahu tacaala. tanwiintuna tanwiintu waxay ka dhigan tahay laba kordhow iyo laba hoos dhow iyo laba gudaal. laakiin tanwiintu waxa weeyaan asalkeedu maadaama xidhiidhkay leeyihiin oo kale waxa weeyaan tanwiin waa nuun lagu dhawaaqo oo reeban, laakiin si aan la qorin marka la qorayo. nuun lama qorayo, waxa la qorayaa ama laba kordhow ama laba hoos dhow ama laba gudaal insha allahu tacaala. marka waxaan ka sheegi doonaa, waxaan leenahay sheekhu aljazuuri wuxuu yihi markaa sheekh qoray tuxfat alatfaalka, linuuni nuuntii in taskun haddaad sukuun siiso oo aad sukuun siiso waxamay shardiga u sheegi sheekhu leeyahay haddii la siiyo sukuun iyo weli tanwiintii. marka labada xukun buu ka sheekeynaya, labada shardi, tanwiin iyo nuun reeban. linuuni in taskun haddaad nuunka reebto iyo weli tanwiintii. marka ruunka reebto iyo tanwiinta axkaamteedii arbacatu axkaamin bay ahayd asalkeedii, laakiin waxaa loo yidhi arbacu si gabayga loo isugu hagaajiyo insha allahu tacaala. arbacu axkaamin, afar xukun ay leeyihiin. afartaa xukun maxay kala yihiin markaas? marka axkaamu nuun saakina iyo tanwiin sheekhu wuxuu yidhi afar xukun buu leeyihiin. afartii xukun maxay kala yihiin halkan inoogu sheegi doonaa insha allahu tacaala. marka wuxuu yidhi ka koowaad, falawalu ka koowaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa alidhaar, muujin oo qabla alaxrufi xuruuf horteed yimid. haddaba wuxuu lilxalqi sittatun buu ahaa asalkiisi, laakiin gabayga awgeed lilxalqi sittun rutibat. xuruuftii xalqiga ka soo baxaysay ee lix baa loo habeeyey ee faltacrifii saa ku baro. wuxuu ku barayaa xuruufta idhaarku waxaa kaloo la yidhahdaa xuruuf alxalq, waana 6 xaraf, waxaana lagu habeeyey qaabkaase saa ku ogo buu leeyay sheekhu. ka koowaad waa maxay? alhamza. ka labaadna waa maxay? alhaa. ka saddexaadna waa maxay? waa cayn. ka ugu dambeeyana waa maxay? afartaa ku xiga waa xaa. muhmalataani, labadaas oo aan dhibco lahayn, caynka iyo xa'du dhibca mala buu ujeedaa. marka muhmalataani aan dhibco lahayn. uma intaa kadib ghaynun khaaun, ghayn iyo khaa. marka 6da xaraf oo ah 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6, 6da xaraf oo ah xuruuftii idhaarka ama muujinta. oo waxaa shardiya haddaan imika halkan idhaahdo nuun reeban iyo tanwiin ayaa la helay. waxa ka dambeeya ee iyaga ka daba yimaadaana haddii alhamza iyo haa, cayn iyo xaa,
qoyn iyo kho hadday lixdaa xaraf yihiin waxaa la yidhahdaa xukunkaasi waxaa la yidhahdaa idhaar ama muujin insha allahu tacaala sida loogu muujiyey tusaalayaashina wayna soo socota kitaab kalaan ka soo qaatay sawirkanna insha allahu tacaala marka wuxuu sheekhu yidhi haddaad koowaad aragto waa hamza alhamzatu waxaana iska daba dhacay nuuntii reebaneed baa la helay waxaa ka daba dhacay maxay hamze marka iminka sida loo akhriyaya waxa weyaan hamzadii halkaa ku jirtay awgeed nuunkii lama qunaynayo lagala muujinaya marka waxaa sida loo akhriyayaa ya iyo nuun reeban inkastoo nuunkii sii reebanaa aan la muujin u fiirso hadda nuunkii reebanaa lama muujinoo lama siinin xarakadiis ee sukuunta saa awgeed baa lagu baraya yan-awna laakiin asalkiisu inuu qaatay ahayd markuu idhaarka yahay yan-awna marka hamzihii iyo nuuntii ba iska daba dhacay waa halkan ku jirta waxaa tiraa yan-awna halkana waxa weeyaan nuun reeban markay kelmad ku wada jiraan iyo markay laba kelmadood ku kala jiraan iyo markuu kelmad qura ku jirto waxa weeyaan nuun reeban iyo hamze sida loo akhriyaya nuunka u muuji marka min ilaahin halkana waxa weeyaan tanwiin iyo hamze ayaa iska daba dhacay xurufil idhaar buu ka mid ahaa cadaabun aliim halkana waxaa iska daba dhacay waan kelmad qura ku wada jiraan waxa weeyaan nuun reeban iyo haa yanhawna waa nuun reeban iyo haa min haadin laba kelmadood bay ku kala jiraan labada kelmadood waxaan uga jeedaa nuuntii reebaneed waxay ku jirtaa kelmad haadina waxay ku jirtaa kelmad gooniya laakiin halkan iminka labadiiba waxay ku wada jiraan kelmad quraata xaraf hal kelmad bay ku wada jiraan labadiiba kaasi waa nuun reeban iyo haa kana waxa weeyaan tanwiin iyo haa waxaa loo akhriyaa halkana likulli qawmin haad min iyo haad likulli qawmin haad halkan waxaa noo dhammaaday hamzihii iyo haadii caynkiina inoogu xiga waa kan tusaalayaashiisina waa kuwan markay kelmad qora ku wada jiraan waxa weeyaan nuun reeban iyo cayn ancamta nuun reeban iyo cayn markay laba kelmadood ku kala jiraan oo kelmadan iyo kelmadan ay ku jiraan waxaa loo akhriyaa min calaqin xakiimun tanwiintii miimkaasaa haysta caynkanna goona loo akhriya la muujinaya xakiimun caliim halkana waxa weeyaan nuun reeban iyo xaa oo xaadii bay noo bilaabantay watanxituuna nuun reeban iyo xaa baa iska daba dhacay halkana min xakiimin halkana waa tanwiin waxa iska daba dhacay xaa min xakiimin xamiid halkana waa qoynkii fasayungi nuun reeban muuji fasayungiduuna laba kelmadood bay ku kala jiraan kelmadan iyo kelmadan waxaa loo akhriyayaa markaasna waxaa odhanayaa min ghillin halka waxa weeyaan tanwiintii iyo qoyn lacafuwun ghafuur iminka hadda halkana ku qaldamayna waxa weeyaan wowga marka aad soo baratay markuu fadxaha saarnaa see loo akhriyaa wan markuu hoos dhowga saarnaa see loo akhriyaa win markuu labada damood saarnayd waxaa loo akhriyi jiray markaad hoygaada soo baratay wan win wun waa adigoo akhriya waaw nuun reeban waaw fadxa saaran waaw dama saaran yahay iyo nuun reeban oo nuun reeban aad ku istaagto aakhirkiisa oo tiraahdo nuunka reeban c aakhirka wun waaw dama nuun reeban wun saasaa loo akhriya asalkiisa laakiin san uu qoran yahay tanwiinta iyo waxay la saaxiib yihiin iyo nuunta reeban isaga tanwiinta lafteeda ah nuun reeban dhawaqiisu lacafuwun shad baana ku jira halkaas shad ayaa ku jira oo la adkaynayaa halkaa waxaa ku jira shadkana waxay ka dhiganta inaad adkaysid carabka madebnaha meeshuu xarafka kasoo baxayo aad ku adkaysid lacafuwun ghafuur halka waxay noogu dambeysay khadii waxaa loonaya walmunkhaniqatu waxaa iska daba dhacay nuun reeban iyo kha walmunkhaniqatu halka waa nuun reeban
iyo khaa min khayrin. kaasi waa idhaarkii saasuu inoogu dhammaaday insha allahu tacaala. halkana waxaynu ku xigsiin doonaa idqaamkii. wathaani xukunka labaad ee axkaamu nuunu reebanad iyo tanwiinta uu leeyihiin waxaa la dhahdaa alidqaam, isdhexgelin, laba shay loo la isdhexgeliyey, kaasoo bisitatin atat isaguna 6 xaraf ku yimid oo fii yarmuluuna kelmadan baa cindahum ay cinda alquraa, cinda quraa ama dadka qur-aanka yaqaana agtooda qad habatat ay ku sugnaatay, runtii ay ku sugnaatay. marka wuxuu leeyahay sheekhu halkana xuruuftii idqaamku waxa weeyaan waa 6 xaraf, waa 6dan. marka wuu kala saaraya, wuu inoo sheegi doonaa insha allahu tacaala 6dii. marka 6dii 4 baa la idqaaminaya, 4 ayaa la idqaaminaya. 4tii waxa weeyaan alyaau, alwaawu, almiimu, annuunu, ama lagu soo ururiyey yaa, loo soo ururiyey yaa iyo nuun iyo miim iyo waaw. yanmuu 6 xaraf, 4 xaraf lagu soo ururiyey kuwa qunaha leh. marka waxa weeyaan ka koowaad waa yaa iyo waaw iyo miim iyo nuun. tusaalayaashoodina waa kuwan, mid kastaba halkan inoogu keenaya insha allahu tacaala. ka koowaad waxa weeye nuun reeban iyo wax iska daba dhacay yaa, waxaa loo akhriyayaa waa shay la dhexgeliyey oo laisku dhex asturay. marka waxaad sii degtaa meeshii yaada sii teg markaad akhriyaysid. man yacmal intee lagu haynayaa 2 xarako, intaad ka akhriyi lahayd ya man ya qadarkaasoo kala jid. man yacmal halkan waxa weeyaan tanwiin iyo ya. fi'atun markaad akhridid ta'da labada dhibcood leh tu dheh, labada dhibcood leh waxaa tidhahdaa ta dama sii tu'da markaad akhridid waxaa sii tagtaa meeshii yaada caladuul, meeshii yaada tag. yaadana maxaa saaran sukuun. waxaa tidhahdaa markaa fi'atun yansuruuna. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso tirahdo aniyo halkan waxaa ka dambeeya nuun reeban iyo sood, laakiin maynaan gaadhin xukunka insha allahu tacaala. waxaad iminka xoogga saartaa tanwiintaasi ay taadu saaran tahay iyo ya-daasi ay ka daba dhacday. waxaa tidhahdaa fi'atun yansuruuna. halkan waxa weeyaan waawgii iyo nuun baa iska daba dhacay, nuunkii iyo waawgii cafwan. marka waxaad tidhahdaa toos waxaad u akhridaa miimka meeshii waawga sii tag, marka qunana sii 2 xarakadood. marka waxaad tidhahdaa min, dabnahana soo yiib si lagu arkay inaad akhriyayso waaw. min waliyin. halkan waxaa la akhriyaya tanwiintan iyo waawga mar isdhex gelinaya. siraajan wahaaja. miimkii oo ka daba dhacday nuunkii oo ka daba dhacay miim, waxaa la min buu ahaa soo maha. min waxaa ka boodaa nuunka, haba akhriinba. marka miim reeban iyo waxaad isku akhridaa nuun shadan. min maain, min kuna xeji xarakateyn intaad ka akhriyada lahayd 2 xarako. min maain. halkan waxa weeyaan tanwiin iyo miim. siraatin mustaqiim. nuun reeban iyo nuun xarakaysan. marka nuunkiina waa kan. in naquulu malikan, nuun reeban akhri, tanwiin iyo nuun cafwan. malikan nuqaatil, malikan nuqaatil. 4taas waa 4tii la quninayey. marka halkan inoogu sharxaya wuxuu leeyahay laakinahaa hase yeeshee qismaani 2 qismood weeyaan idqaamku. qismun qayb yudqamaa lagu idqaamiyo oo shayga la dhexgeliye ah, oo fiihi bigunnatin qunno lagu bartay qunne, oo biyanmu yaa iyo nuun iyo miim iyo waaw 4 xaraf lagu soo ururiyey, oo ba'dani uu ku bilaabantona iyadoo kuma jirto. xuruufta xaraf kelmadun bay ku bilaabantay, laakiin waxaa looga jeedaa yaada iyo nuun iyo miim iyo waaw. biyanmu culima ayaa lagu bartay
sidaasaa lagu bartay ilaa idaa kaanaa hase yeeshee hadday noqdaan mooyaane hadday noqdaan ilaa idaa kaanaa bikilmatin haddii kelmad qura ku wada jiraan oo xuruuftii idqaamka hadday kelmad nuunkii reebanaa iyo ya-dii ay ku wada yimaadaan falaa tudqim ha idqaaminin lama idqaaminin sidii halkan ha odhanin halkan waxaa dhashay nuun reeban waxaa ka daba dhacday ya ee xukunkii idqaamka siimay wuxuu ku yiri sheekhu haddaad aragto iyagoo ku wada jira kelmad bikilmatin kelmad quraata ha idqaaminin falaa tudqim waxaad tirahdaa ka dunyaa muuji dunyaa si fiican u muujiyo halkaasi nuunkeedis caadi muuji ka dunyaa addunyaa nuun akhri sheekh sinwaan qinwaanna way jirtaa falaa tudqim ha idqaaminin ka dunyaa sida kelmadaasi dunyaa oo kale thuma dabadeedna sinwaan kelmadaas oo kale tala oo raacday wuxuu yidhi marka wathaani qeybta labaad ee idqaamku ahina bikayri qunnati aan la qunaynaynin fi laami wara lixdii xarafaynu soo dhiganay ahaa yar muluuna waxaynu kasoo sheekeynay yaa iyo nuun iyo miim iyo waaw oo aynu yidhi yanmu waa afartaasi xaraf waxayna inoo hadhay laba xaraf oo ah laam iyo raa oo aan iyaga la qunaynaynin oo lama qunaynayo laam iyo raa qunna ma jirto labadoodaasi thumma kadib kariranna soo celceli yani laamka wuxuu jeedaa ra'da soo noqnoqota kusoo noqda makhrijkeeda kusoo noqnoqota wuxuu yidhi halkii tusaale haddaan ku siiyo laamka halkan waxa iska daba dhacay nuun reeban iyo laam marka haba idqaamin idqaamala kani waxaad isku akhridaa nuun alif hamsahan iyo laamkaas waxaad tirahdaa allow hamse fadxa a iyo laam fadxa oo shid saaran yahay allow oo ka bood aliftan nuuntan cafwan halkan waxaa la akhriyaa tanwiintan ayaa laga boodaya waxa la odhanaya daal fadxa uu saaran yahay iyo laamkaasaa la isku akhriyaya waxaa la odhanayaa andaadan liyudiluu halkaad ka odhan lahayd idqaam si may lama idqaaminayo cala duul u akhriya andaadan liyudiluu halkanna waxaa laga boodayaa nuunka reeban oo miimka iyo ra'da toos la isku akhriyaya idqaam ma jiray markaa min rabbika halkana tanwiintan iyo waxa la isku akhriyaa ra'dan ba toos la isku akhriyaya waxa la odhanayaa bashara rasuula marka halkaasina waxaad ku baratay idqaamkii aan la qunayn oo ahaa laam iyo raa insha allahu tacaala wathaalithu ka saddexaad ee xuruuf axkaamu nuun saakinati watanwiin xukunkiisa saddexaad ilaa afar xukun bay nidhi weeyaan bilowgii aliqlaab gadin iqlaabkuna waxa la yidhahdaa marka la gediye waxa weeyaan cinda albaa'i markuu xarafka ba'da ka daba dhaco oo 6 xaraf oo idhaara iyo 6 xaraf oo idqaama iyo xaraf ba' bayn dhiganay imka 13 xaraf wuxuu sheekhu marka waa thalithu kii saddexaad ee axkaamu nuun saakinati watanwiin ahaa aliqlaab baa la yidhahdaa xukunkiisa gadiid alqalb ama aliqlaab cinda albaa'i markuu xarafka ba'da ka daba dhaco marka maxaa la helayaa nuun reeban ama tanwiin oo ka daba dhacday baa xarafka la yidhahdo baa marka miiman baa loo gediya bigunnatin weliba la qunaynayo maca alikhfaa'i iyadoo la qarinayo marka tusaalayaashiisuna waa kuwan marka waxaad tirahdaa miimkii waa kaa yare sheegayna oo nuuntii reebanayd halka ku jirtay imaka waxaa loo gediyey miim yar miim yar dusha yaala layum halkaad ka odhan lahayd laam yaa nuun waxaad u gedidaa nuunkii reebanaa miim waxaad tirahdaa laam yaa miim oo kale sidii wax miim akhriya ah layumbadanna oo miim baad akhriyaysa xarakataynahay layumbadanna tanwiintiina waa tan oo ka daba dhacday baa marka waxaad tirahdaa caliimum markaad miim toos u akhrido maadaama miimka tanwiinta iyo ba'da ay isku makhrij yihiin waxaad tirahdaa caliimum bidaati suduur fayasiiru nutqu haakada dhawaqoodu wuxuu noqonayaa sidaas waxaa loodhanayaa layum adoo akhriya miim iyo yaa iyo laam
لام يا ميم لا ينبذن أما عليم بذات ساسا لو واقع إن شاء الله تعالى أقاسين كتوشيني إلهي وحين أقدره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.